casharkan waxaan ku duubaynaa arrin ku saabsan casharadii hadda aan soo duubnay casharka 6 iyo casharka 7 iyo casharo jabtaradan ka horeeyay oo ku saabsanaa GCF-ka ama greatest common factor ama dhufsana weynaha ay laba number wadaagaan. ujeedada aan casharkan u duubayna kama mid aha casharada, laakiin waa wax sal u ah ama muhiim u ah khibradda ama skill-keena inaan kor u qaadno sida xisaabta jajabka ahi loogu qori karo simple form ama fraction ka ugu sahlan oo ugu hooseeya marka labada fraction la isu qaybiyo oo number ayaga ay wadaagaan loo qaybiyo. As the title say, in simple form and using GCF. This section explains the useful of the greatest common factor to simplify the fractions. meesha waxaanu isticmaalaynaa arrinkaas ku qoran labada luqadba. waxaanu ku sharxaynaa tusaalayaal 4 ah oo aan ku sharxayno sida uu useful u yahay oo faa'iidada u leeyahay inaad GCF-ka isticmaasho intii aad steps badan aad ku furfuri lahayd inaad gaadho simple form fraction, ama fractionkaaga markii aad xalliso oo aad hesho fraction inaad ka dhigto heerka ugu hooseeya aad gaarsiiso. waxay ku xiran tahay khibradda aad u leedahay qaabka aad iyo stepska aad marayso. waxaan isbarbar dhigaynaa marka la GCF-ka markaad isticmaalaysid iyo marka aadan GCF-ka isticmaalin ayaan isbarbar dhigaynaa faa'iidada iyo sida ay u kala duwan yihiin iyo sida ay hawsha u kala sahlan tahay. tusaalahan hore waxaan kusoo qaadanaynaa marka hore su-aashan waxay oranaysaa 3 loo qaybshay 4 lagu dhuftay 4 loo qaybshay 6. labadan fraction waa isku dhufasho. waan isku dhufanaynaa si aan u isticmaalno fikirka aan ka hadlayno. waxaa inoo soo baxay 12 loo qaybshay 24. haddaba si sahlan waan arki karnaa in hooseeyuhu 24 iyo sareeyaha 12 ay 12 wadaagaan. oo haddaan kor iyo hoos 12 u qaybiyo waxaan arkayaa inaan helayo waa 1 loo qaybshay 2. waxaase muhiimadda tahay qaabkan isticmaalayo anigu aan rabaa hadda inay tusaalaha inu ku baro si number aad fahmi karaan aan u sameeyo waa using GCF-ka. haddaba GCF seen haddaan soo saaro waa hadda sidaas waa GCF baan isticmaalay. haddii marka aan isticmaalay GCF-ka oo ah hadda labadooda numberka GCF-ka ah waa 12, sidee baan ku ogaanaya GCF-ka? sidaasuu ku helayaa GCF labada number. qaabo badan baa lagu helaa oo ah inaad furfurtan 12 maxaa lagu helaa marka 24 maxaa lagu helaa 12 waxaa lagu helaa 2 lagu dhuftay 2 lagu dhuftay 3. 24 maxaa lagu helaa 2 lagu dhuftay 2 lagu dhuftay 2 lagu dhuftay 3.
waa markii 4 furfuro sababtoo laba laba ku dhufo waa 4 4 laba ku dhufo waa 3 3 ama laba laba ku dhufo waa 4 4 laba ku dhufo waa 8 8 ku dhufo 3 waa 4 laba laba ku dhufo waa 2 3 ku dhufo waa 12 hadda waxaan isticmaalayaa waxa ay isaga mid yihiin si aan GCF-ka ku helo labadan number maxay wadaagaan maxayse wadaagin baan kala soocayaa labadan number waxa ay wadaagaanna waxaan saarayaa qalin cas labadaa way wadaagaan labaan ka soo qaadanaya labadaanna way wadaagaan labaan ka soo qaadanaya saddexdaanna way wadaagaan saddex baan ka soo qaadanaya intaasaan isku dhufanayaa marka laba laba ku dhufo waa 4 3 ku dhufo 12 kaasi waa GCF-kayga waa numberka ugu weyn ee labadan number ay wadaagaan qaabkaas oo ku soo saari kara qaabka labaad aan ku soo saari karaa ee habka labaad ee habkan ka duwan wuxuu yahay inaan labadii number ba qayb geliyo qayb nooc kala ah waa marka waxa laga yaabaa dadka badankiisa inay yiraahdaan qaybtani maxay tahay laakiin way sahlan tahay in la barto qaybtan waxa weeye qaybtiga xagga loo fooraarin jiray xagga kale u dhigaynaa waxaana markaas sameynaynaa inaan labadeennii number qorano 12kii iyo 24kii oo mar aan wada qorno waxaan u qaybinaynaa tirooyinka prime-ka ah midkii ay wadaagi karaan marba tirooyinka prime-ka maxaa ka mid ah marka prime numbers-keena prime number-keena waxaa ka mid ah 2 3 5 7 11 13 17 iyo kuwa kale oo intaa ka sii badan oo soconaysa tirooyinkan prime waxaa loo yiri marka la rabo in la helo tirooyinkan waxaa kaliya lagu heli karaa hal iyo iyagoo la isku dhuftay si kale oo lagu heli karo male marka waxaan ku fiirinaynaa marka hore 2 haddii 2 noo labadaba qaadan karaan haddana waxaan ku xijinaynaa 3 haddana waxaan ku xijinaynaa 5 ilaa ay gaadho inay labadaani number ay wadaagaan isi jiraan hadda 2 ka bilaabaynaa 2 haddaan u qaybino 12 2 u qaybi 6 24 2 u qaybi waa 12 waa wadaynaa qaybtii maxaa u gala hadda 2 kale aan u gelinaynaa waa 3 koma halkaana waa 6 weli waa wadi karnaa 2 dambe hadda ma gasho markaas 3 2 ma gasho laakiin 6 2 waa gasha marka waa inuu noqdaa number labadaba gala laakiin 3 baa gasha hadda waa 1 iyo 2 hal iyo number kale oo gala ma jiro wuxuu ku egyahay marka intaan markaan isku dhufto waa habkan hore u soo sameynay ee qaybta eega ah hab labaad ama qaab labaad oo aan u furfuri karno labada marka tirooyinkan ii soo baxay ee ay wadaagaan waxaan gelinayaa goobo saddexda number ii soo baxay saddexda number haddaan isku dhufto waxay siinayaan 12 waana numberkii hadda aan helay waana GCF-kayga waa GCF-kayga waana dhufsanaha weynaha ay wadaagaan laba number marka haddii aad heli karto number ay labada number ba wadaagaan asaga haddii aad laba kor iyo hoos u qaybiso waxaad helaysaa
maxsuulka ugu dambeeya ama final answerka aad hore ka helaysaa intii tallaabooyin badan aad u marmari lahayd. Mathalan haddii aan yeeli lahaa su-aasha sida hadda ay u qoran tahay si ka badan haddaan u qoro oo 2 u qaybsho kor iyo hoos oo haddana 2 kale u qaybsho kor iyo hoos waxaa laga yaabaa inaan dhammaadka ku gaaro tallaabooyin dhowr ah. oo sidaas oo kale hadda tusaalahan hadda aan ka hadlayo 3 loo qaybshay 4 lagu dhuftay 4 loo qaybshay 6 haddii aan idhaahdo waa 12 loo qaybshay 24 ee aan 2 u qaybsho kor iyo hoos waxaan helayaa 6 loo qaybshay 12 haddana haddaan usii qaybsho min 2 haddana waxaan helayaa 3 loo qaybshay 6 haddana 2 markaan u qaybiyo kor iyo hoos waxaan helayaa 1 dhammaadkii aan tegayaa loo qaybshay 2 oo halkaan aan ku qorayaa laga yaabo inayna si fiican u arkin 3 2 loo qaybshay waa 1 ama 3 loo qaybshay 3 waan kor iyo hoos u qaybinayaa markaa waa 1 6 loo qaybshay 3 waa 2 waxaa laga yaabaa 3 tallaabo markaan su-aasha kasoo bilaabay inaan ku gaaray dhammaadka meesha hadda aan taaganahay. GCF-ka marka wuxuu uga duwan yahay in aad labada number xiriirka ay leeyihiin ee numberka u qaybsami kara aad hore ka aragto ka hesho asaga. haddii aad taqaano numberaduna sida ay GCF-kooda u badanna qofku markuu practice sameeyo uu fahmaa wuuna bartaa inaad isla markiiba maxsuulka gaariso. arrintaas marka jawaabtaasi GCF-ka inuu yahay habka ugu sahlan ee simple formka fractionka loo qoro. tusaalaheena labaad waxaan kusoo qaadanaynaa su-aashitan. su-aasha waxayna leedahay 7 loo qaybshay 7 loo qaybshay 15 lagu dhuftay 30 loo qaybshay 42 waxaan u doortay numberkan weyn waa inaynu fahanno GCF-ka faa'iidadu leeyahay iyo hawsha si u fududeynayo. sidaan hore u naqaanaba GCF-kan su-aashan waxay ka mid tahay su-aalaha ku yaal page-kan multiplying fraction waana su-aasha 22 haddaad u fiirsataan page-ka waa su-aasha 22 seerka gelageliyey. haddii aan marka 7 ku dhufto 30 waa 210 15 marka ku dhufashadeeda 42 waa meeqan waa marka waa inaan isku dhufanaa marka waan raadinaa 42 inaan ku dhufano 15 oo iyadaan gooni u samayna marka oo meel gaara ku samayna waxaan dhahaynaa marka 42 kalarka laan saaraya 42 lagu dhuftay 15 waa isku dhufanaynaa 2 ku dhufo 5 waa 10 albaa wadataa 5 ku dhufo 4 waa 20 halkaa waxaa haystaa 21 inta badan isku dhufashada qaybta kore markay dhammaato qaybta labaad halkaa waa inaad eber ku qortaa. inta badan dadka waxaa laga yaabaa maxaa eber loogu qoraa sababtoo ah eberka kore ee hore wuxuu ka taagan yahay ones. numberkan hadda labaad aan qaadayno oo hal lagu dhufto labadana waa 10aad marka 10aad waa inuu ku aadaa 10aad
tobnaad numberkan waa 10 lagu dhuftay 2 waana 20 10kan halka dhexa ku yaalana waa tobnaad marka waa inay isku toosaan saas awadeed maadaama kan uu 20 yahay waa inaan 2 halka ku qoraa labada markay halka ku aadiyo ayay 10kii 2 lagu dhufto 20 ta si kala kuma imaanaysa haddii halkaas hore aan dhigo labada xisaabtu ay khaldamaysaa waxaan ka turjumayaa labadii inay laba caadi ah tahay 4 lagu dhuftay 1 ama 1 lagu dhuftay 4na waa 4 مثلا haddii shantan ewer ay ahaan lahayd 15ka meesha ah waa 10 lagu dhuftay 40 waa 420 xisaabtu marka saasay sax ku tahay markasta waan isku darayaa marka waa ewer hal ku dar 2 waa 3 2 ku dar 4na waa 6 halkaa waxaa iga soo baxay marka 630 hadda markaan rabo inaan simple form u qoro waxaan ka fikirayaa marka qaabkayga labadan number inaan GCF kooda soo helo GCF kooda marka inaan soo helo ama aan sidayda caadiga ahaa isticmaalo oo hadba numberkan garanayo u qaybiyo ilaa aan gaaro heerkay u hoosay labadaba waa mudana laakiin GCF ku waa inaan soo saartaa ama taqaana hadda labadooda waxaan isla markiiba arkayaa inaan 10 u qaybin karo haddaan 210 u qaybiyo waa 21 630 haddaan min 10 u qaybiyana waa 60 marka laba weyba ii sahlan tahay anooba meel dheerba gaarin inaan sii fududaysto laakiin haddaan iskaal galo oo aan labadii number garan waayo waxaa ii fiican inaan GCF ka soo saarto waxaan leeyahay hadda 210 loo qaybshay 10 loo qaybshay 630 loo qaybshay 10 waxaa ii soo baxay halkaan soo guurayaa dhankan hoose waxaa ii soo baxay 21 loo qaybshay 63 bay jawaabteeda noqonaysaa hadda waxaan u baahna marka 21 iyo 63 maxay wadaagaan numberka ay wadaagi karaan muxuu yahay waxaan dhahayaa marka waan raadinayaa marka inaan ogaan karo number ay wadaagaan 21 maxaa lagu helaa 21 waxaa lagu helaa 3 lagu dhuftay 7 63 maxaa lagu helaa 63 waxaa lagu helaa 9 lagu dhuftay 7 9 lagu dhuftay 7 oo 9 maxaa ka kooban tahay waa 3 lagu dhuftay 3 lagu dhuftay 7 lor waxaan ogaaday oo isla markiiba ii soo baxayba inay labadan 3na wadaagaan 7na ay wadaagaan labadoodii markaan isku dhuftana 21 ay noqonayso waxaan fahmay marka hadda maadaama GCF kiiba uu 21 yahay labadoodaba inaan 21 u qaybsho markaas meeshaan maran ee 21 waxaan gelin karaa 1 lagu dhuftay 1 waxba kama bedelay 21 1 lagu dhuftay 3 lagu dhuftay marka labadan ayaa ii muuqataba ansarkaygaba inuu noqonayaba labadan inuu ansarkayga noqonayo ii muuqdo marka hore u socdo waxaan leeyahay marka korios waxaan u qaybinayaa 21 loo qaybshay 21 63 loo qaybshay 21 halkaa waxaa ka soo baxaya 21 loo qaybshay 21 waa 1 63 marka 21 loo qaybshana waa 3 markaas 3 marka 21 ku dhufto waa 63
halkaasna waxaa ku dhammaaday nambarkayga su-aashay ahayd 7 lagu dhuftay 31 iyo 15 lagu dhuftay 42. su-aashan qofka inuu skiilkiisa kor u qaado waa laga maarmaan, laakiin waxaa laga yaabaa marka uu beginninka yahay inuu u baahan yahay dhammaan waddooyinka inuu maro. waxaase macquul ah isla su-aashan laftigeeda meesha ay ka bilaabataba inaan simplify ku samayn karo oo jajabkii aan ku fududayn karo. oo see ugu fududaynaya, aan soo qorno su-aashii mar labaad. 7 loo qaybshay 15 lagu dhuftay 30. waxaan kalarka u saaray in ay ku kala muuqdaan qaabka. waxaan leeyahay marka si dadab ah waxaan u fiirinayaa nambaradan xiriirka ay leeyihiin. dadab waxaan ka wadaa kuwa hooseeya waxaan ku beegayaa kuwa sare. kuwa sare aan ku fiirinayaa yay xiriir leeyihiin, yay number wadaagaan oo number isku mida loo qaybin kara. waxaan arkayaa in 15 iyo 30 aan labadaba 15 u qaybin karo. haddaan 15 u qaybino waa 1, haddaan 30 15 u qaybino waa 2. halkaa waxaa iiga soo baxay hoosta tan inaan ka haysta 1 lagu dhuftay halkaa sare na aan ka haysta 2. labadaa fraction saasa iigu kala baxaan. labadan kale dadab haddaan u fiirsho saad rabtood u fiirin karaa, laakiin waxaadan u fiirin karin 2 hoos joogta isuma fiirin kadhid, 2 sarena isuma fiirin kadhid. oo macnaha waxaa ka wadaa 42 uma fiirin kadhid 15 xiriirka ka dhexeeya. 30 iyo 7 uma fiirin kadhid xiriirka ka dhexeeya. sidaa ma aha, kuwaas waad isku dhufan kadhaa, qayb ma galaan. laakiin markaad qaybta isticmaalayso waa inuu nambarna sare jiraa nambarna hoose jiraa. 15 iyo 7 kor iyo hoos bay kala jiraan, qayb way geli karaan. 30 iyo 42 qayb way geli karaan. dadabna waa u geli karaan oo 15 iyo 30 waa isu fiirin kadhaa, 42 iyo 7 waa isu fiirin kadhaa. laakiin waxaad u soo eegi karin 2 sare inay qayb aad ku eegtay. 2 sare waxaad ku eegi kadhaa isku dhufasho kaliya. hadda waxaan fiirinaynaa 7 iyo 42. 42 ma u qaybsantaa 7? haa, sababtoo 42 waxaan ku helnaa 6 lagu dhuftay 7. soo 7 haddaan u qaybiyo 42 waa 6. 7 haddaan 7 u qaybiyana waa 1. meeshan waxaa iga soo haray 1, halkaana 6 baa iga soo haray. lana hadda waxaan haystaa 1 lagu dhuftay 2 iyo 1 lagu dhuftay 6. waxaan usii qaybin karaa si sahlan 2 iyo 2. jawaabteedana marka waxay noqonaysaa jawaabtii hore aan u haystay oo ahayd 1 loo qaybshay 3. waxaan gelinayaa circle, markaas waxaan ka wadaa circleka calaamadda ah halkaasay ku dhammaatay. labadaa tusaalo iyo qaabka GCF-ka aan kusoo saaraynay labaduba waxay naga caawinayaan 2 fraction markaan isu qaybinayno mar kasta in GCF-ku uu yahay haddii nambaradu waaweynaadaan waxa keliya aan si sahlan aan ugu heli karno simple form aan uga dhigi karno fractionka. haddaba waxaan rabaa maadaama
buugga uu halkaa ka muuqdo qofka ka shaqaynayana uu arki karayo su'aalaha adoo raacaya qaabka tusaalaha inaad isku daydo su'aalaha inaad ka shaqayso hababka kala duwanna kii aad u fahantaa aad isticmaasho inaad GCF ka soo saarto ama dhufsana weynaha ay wadaagaan labada number sarreeyaha iyo hooseha aad raadiso ama aad numberka hadba labadooda u gala aad mar walba u qaybiso ilaa aad ka gaadho maxsuulka ugu dambeeya. halkaa waxaa noogu dhammaaday casharkii aan uga hadlaynay faa'iidada uu leeyahay GCF-ka ama dhufsane weynaha ay labada number wadaagaan. asalaamu calaykum.